gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Axmed Ibraahim Xaaji Siid ayaa waxa uu ka qalin jabay jaamacadda kulliyadda sharciga ee Joobkay waxa uu munaasabad qalin jabinta ku qabsaday xaruntiisa maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe munaasabadda qalin jabinta ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin marti sharaf iyo odayaal iyo suldaan ka tirsan beelaha Soomaaliyeed Suldaan Axmed Siid Sheekh Shucayb ugu horeen waxa meesha ka hadlay odayaashii ka soo qayb galay munaasabadda lagu dadaalan leeyahay waxbarashada lagu dadaalo hadda hadii Sheekh Axmed Siid oo da'dan jooga oo soo qalin jabiyay ninka soo qalinka qaado ma laga duqo waxbarasho ilaa nafta kugu jirto way soconaysa marka waxaan leeyahay waxbarashadu ha socoto ilaahay ha fududeeyo jaamacadana tii marka heer sare gaarta la ka dhigo waa gaartay hadii hadda la qalin jabiyay tii heer sare gaarta oo sii socota Allah ka dhigo unukana kuwi maaragta wax barta Allah naga dhigo haddana waxaa mahad weyn leh maanta Sheekh Axmed Siid oo wada naqaano doo maanta xaflad ugu dhagay xilbaana ay joogaan kusamaha gobolka ay joogaan gudoomiyaha degmada ay joogaan Suldaan Axmed Rashid uu joogo macallimiinta kale ay joogaan odayaal dhaqameedka ay joogaan maanta unugaana la goobayo waa dareemayna yani Sheekh Axmed Siid waa qalin jabiyay siidka tiis waxa Sheekh Axmed Suldaanka tiisaan raacahay ku dastay meesha ka muuqato waa faa'iido weyn Ilaahay noo keenay alxamdulillah aad iyo aad jaamacadda Joobkay waxaan aaga mahad celinaynaa inta salaanka bacdi maanta oo Agoosto 4 tahay 2017 waxa farxad weyn ah qalin jabintii Sheekh Axmed Siid inaan meeshaan isugu nimid oo ka soo qalin jabiyay maxkamadda Joobkay jaamacadda Joobkay oo ka soo qalin jabshay aan halka isugu nimid hafi hadal kuma jirto ayaan horta aad ugu faraxsanahay waa maalin qiimo leh Sheekh Axmed marka waxaan ku dardaarmaa halaan leeyahay Sheekh Axmed asal ba aqoontiisa intii hore u haystayne ummadda waa uu soo shaqeeyo kiniba halkaan oo ka soo halgamay oo maalintii halkaan ma taqaanaa dawladda timid ilaa hadda waa taagnay haddana inta kale Ilaahay siiyo bartay oo maanta qalin jabshayne haddana ummadda inuu ugu shaqeeyo saasaan kula balama haduu Ilaahay yiraahdo waxaan saaki aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo oo wakiilka ah dalada waxbarashada Shabeelle gobolka xaflad qiimo iyo qaayo iyo milgale saaki loo dhigayo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka qalin jabintii uu ka qalin jabiyay kulliyadda sharciga iyo qaanuunka ee jaamacadda Joobkay arin aad loo farxay waa faraxsanahay maadaama maanta waxa la yiri nin oo jareer oo xillu diibi nin jareer ee joogka kaadiyaan wayni jalaaca oo jarjar buu xalaalowdi hadda maanta nin oo qalin jabi oo magacaas u dhashtay asoo qabiil ma ah laakiin magaciisa uu taabana soo culimo u diin waay hersiid waay laakiin jareerkii uu taabana marka jareer gobolkiisa uu qalin jabi oo maanta shahaada loo keenay ilaa hadda mahadle si wada wax kale aan naftirkay waxa waay waa imidikaayo abkoo soo baxay dib u dhiilahay waa ahkaan leeyahay waa iska gali lahay qaanuun sharci waa bar lahay waan iska gali laakiin soo baxay madiina hadda waxa maqluuhaybo wiilkaadii abkoo eeda qalin jibi mad waa ku faraxsanahay laakiin wixii birika bilaawata aniga waxaan rabaa in jaamacadda Joobkay oo kamid noqdo dhaga kale waxa meeshaasi ka hadlay mas'uuliyiinta jaamacadda Joobkay ayagana waxay hambalyo u direen gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Axmed Ibraahim Xaaji Siid gudoomiyaha degmada Jawhar Ismaan Baari ayaa asagana u diray hambalyo salaanka dib waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan aad oo qiimo badan qaayaha badan oo maanta alxamdulillah nagu soo dhaweeyay Sheekh Axmed Xaaji Ibraahim Siid dabcan wuxuu kamid yahay ardada ka qalin jabisay jaamacadda Joobkay kulliyadda sharciga iyo qaanuunka sidoo kale waxaa jira arday badan oo ka qalin jabisay kulliyadka kala duwan ee jaamacadda ay bixiso dabcan wuxuu kamid ahaa ama nasiib u yeeshay dadkii jaamacadda bilaabay kuna soo dhameystay si farxad leh waxaan aad ugu mahad celinayaa mar walba u tahniyadinayaa insha Allah sida wacan uu markan oo kaga soo qayb qaatay inuu xafladii insha Allah markan maanta nagu soo dhaweeyo anagana waxaan rajaynaynaa insha Allah midaas mid ka weyn inaan haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah aan u soo qaayaha leh sidoo kale waxaan u mahad celinaa Allah subhanahu wa ta'ala haleeshii Sheekh Axmed daad uu taagan yahay
inuu jaamacad ku qalin jibiyo haddana ku dayasho ay mudan tahay dadka kale waxaan leeyahay oo sidaas oo kale ah cid u gudbi maayo qof kastoo tabartiisa gaarayso inuu ka qayb qaato waxbarashada run ahaantii markii ka dambayso waxbarashada zaa'id wayso haddana sheekh axmed oo maanta cadaaladda ka shaqeynayo hadduu maxaa la dhihi jiray uu qalin jibinayo aad aan ugu faraxsanahay ugu dambeyntii waxaa xafladda soo xiray gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Axmed Siid maanta wuxuu furay taariikh boos cusub ah maxaa yeelay wuxuu noo sheegay inay ku xirnaan waxbarashada da'yari iyo da'weyn midba maxaa yeelay hadduu maanta asaga bilaabay waxaan leeyahay horta odayaasha kale waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay ayagana tuso inay wax bartaan Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Qalfa warbaahinta Jubba Shabeelle News magaalada Jowhar.